إلهي سبحانه وتعالى وحو نسيه مال مخير بدن عيمن سلينا قدام مدافع الذنوب تينو كسور دشترني أنا نوجد وانا الله سبحانه وتعالى haddaba walaal kasta oo ay gaadho fariintan waxaan leeyahay maalmahani waa fursad aad iskaga tirtiri karto dunuubtii iyo gabafkii ka dhacay. haddaba walaal maalmahani kooban waxaa ka mid ah 10ka Dulxija. nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu nagu boorinayaa inaynu ku dadaalno camalka wanaagsan si aynu uga mid noqono kuwa loo dambi dhaafo ayaamahan. الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ayaamahan noo curtay ayaa ah kuwa Allah subxaanahu wa ta'ala ay ku dhaartay. Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu ku dhaartaana ma ahin wax sahlan. maalmahan kooban ee walay nagu galadaystay walaalayaal waxa la inooga baahan yahay inaynu ka faa'iideysano inaynu ku dadaalno camalka wanaagsan sida soonka, akhrinta quraanka, u samafalida waalidka, oogida maalmahani Allah subxaanahu wa ta'ala waxa uu jideeyay in aynu badino xuska Alle. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu warinayaa in uu yiri maalmaha adduunka ugu fadliga badan waa 10ka Dulxija. kadib nabiga ayaa la su'aalay oo lagu yiri ma waxay ka khayr badan yihiin maalmo inta leeg oo 10 ah oo la jihaado. kadib nabigeena waxa uu ku jawaabay haa way ka khayr badan yihiin ilaa qof u shahiiday mooye. maalmahan 10ka ah waxaa ku soo ururay ayaamo fadli badan oo ay ka mid yihiin maalinta Carafo, maalinta xajka weyn iyo maalinta dambi dhaafka iyo maalinta gowraca. haddaba walaalayaal maalmahani waa maalmo dahabi ah oo mudan inaynu dhammaanteen ka wada faa'iideysano aynu sameeyno dhammaanteen camalyo wanaagsan aynu xafidno kuwii wax naga dhaxeeyeen aynu caawino masaakiinta iyo inaynu ku dadaalno salaada iyo inaynu xiriirno raxinka iyo qaraabada in aynu xafidno farjigeena in aynu badino saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam in aynu oofino balanta in aynu u gargaarno agoonta in aynu wanaajino martida iyo dhammaan acmaal kale oo tiro badan oo aan la soo koobi kareynin. haddaba walaalayaal fursad ayaynu haysanaa ayaynu ka faa'iideysano khayraadka ku jira maalmaha 10ka ah. haddii kale waxaynu ka shalaayi doonaa maalin aynu shalayta wax qabanaynin.